kow labo saddex afar ladan baan la joogaa waana ku faraxsanahay subax wanaagsan walaalayaal waan idin salaamaynaa meel aad joogtaan adduunka dacaladiisa waxaan kulannay saakay mar labaad ladan maxamuud xoogaa wax yar bay xalay xanuunsatay sida ii sheegtay laakiin aad iyo aad bay u fiican tahay qofku markuu ehel helo oo rixin helo oo naxariis helo oo raxmadda bini aadanka ilaahay isu geliya helo damiirkiisa qof ahaaneed baa qoya raxmad baa gelaysa fiicnaan iyo caafimaad baana u bilaabanaya meelo aad iyo aad iyo aad iyo aad u wanaagsan oo u kala fog oo u kala durugsan oo qaarado kala duwan ayaa lacagta laga soo dirayaa waxaan aaminsanahay haddaad ladan siiseen inaad qof walba oo soomaaliya sidaas iyo si lamida u dhiban ama idinla soo xiriirin aad u siinaysaan dad khayr badan oo reer Norway especially magaalada Oslo degan ayaa lacag ii soo diray aniga la soo mariyay laakiin lacagta waxa iskala ladan waxaa lacagtan soo diray waxaa lacag dhan $2,623 isku soo daray oo soo aruuriyay walaalaha Soomaaliyeed oo ka kooban rag iyo dumar waxay dadkaasi degan yihiin magaalada Oslo iyo nawaaxigeeda magaalada Oslo iyo nawaaxigeeda dad degan oo dhalinyaro oo muxsiniin oo khayr badan ayaa lacagtan soo diray lacagta cadadkeedu waa $2,623 waxaa lagu soo diray lacagta 3 rasiid oo kala duwan mid wuxuu ahaa $1,000 midna wuxuu ahaa $1,000 midna wuxuu ahaa $623 lacagtaas waxaa budhigayaal u ahaa oo aruurinteeda iska lahaa labada gabdhood ee khayrka badan ee la kala yiraahdo Nasro Qoraansay iyo Ikraan Baasaweyne inaad annaga nagu soo sharafteen inaan lacagtaas idinkaga mas'uul noqono oo gabadha u dhiibno waxa weeyaan sharaf bay noo tahay lacag sida ay sheegay 3 rasiid oo kala duwan bay ku timid mid kuna iyo mid $623 lacagtaasi iyadii oo dhammaystiran ayaa waxaan rabaa inaad markhaatiga la noqotaan inaan walaashii aan ku wareejiyo tiinana ku tiriyo ladan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 waa $2,600 $20 wakaas $2,620 baan u dhiibaayo $3 waxay ku jirtaa saalkayga haddaan bedelayaa mar labaad waxaan idiin sheegayaa lacagtaas iyadaa inay ka timid gabdhaha iyo wiilasha sharafta iyo karaamada leh ee ku nool magaalada Oslo iyo nawaaxigeeda ayaa lacagtaas soo aruuriyay lacagtaa waxaa iska leh ladan maxamuud waxayna ku soo direen ama ka soo qaaday oo lacagta budhigayaal u ahaa aruurinteeda walaal Nasro Qoraansay iyo Ikraan Baasaweyne sharaf iyo karaamay noo tahay qof walba oo Soomaali iyo qof walba oo wax la baxay ama horay ugu soo diray ama hadda u soo wada ladan walaashiin weeye garabkiinayna u baahan tahay wixii aad u soo dirdeenna waxaan rajaynaynaa insha Allah in aysan baylihin doonin laakiin wadada rasmiga ee ay u baahan tahay inay marsiin doonto gabar baa ila hadashay telefoonkaaga mashquul noqday kadibna aniga ii soo wacday markaan ku soo wacay way aan ku lahaa telefoonka nin baa iga sabtay way tiri lacagta $30 ayay soo diray gabadha xamar bay joogtaa telefoonka ay ka soo dirtay waxa ku qoran magac la yiraahdo Xuseen Khalaf magacaas baa ku qoran $30 bay soo diray $30 iyo saddexdii waa $33 marka $33 numberkii wuxuu ahaa 6002295 soo maahay $33 halkaan aan ku diraynaa sahalka waa haysaa soo maaha ladan maxamuud axmed wakaa $33 ma iga haysaa
waa idin salaamaynaa waana wax wanaagsan waxaa qabateen ilaa iyo shalay ilaa iyo doraad ilaa habeen hore waxaan rabnaa inaan maaragtay dadka u sheegno telefoonka ladan waa hal telefoon muxuu ahaye toole telefoonada aad bay u badan yihiin dadka la soo xiriiraya waxaan rabnaa inaad ku qanacdaan haddii telefoonka hore uu idinkugu soo geli waayo ama horey laydinkaga qaban waayo ma xumaato qofku qof xanuunsan weeye qofku waa iska daali karaa xaalado badan iyo marxalado badan baa iska jirta marka waxa weeye inaad u cudur daartaan waan rajaynaynaa waxaan ku yidhi shalay markii aan kaa tegey wax lacaga oo ku yimid ma jira haye lacagta sahalka ku jirta intee wey sahalka 10 baa ku jirta very good igana maxaa noogu jiray 20 tiisha baa ku shubtay miya okay 20 good haddana waa lacagtan waa 2,600 700 baa tiri okay hadda waa 2,600 ما شاء الله إلهي بي مرق إلهي بي مهدو سقناتي إلهي بي مهدو سقناتي لدن كدلي سومالي وين لدن كدلي جبر لدن سيغي شرفت دادكيد ugu qariimayaan ugu naxariisanayaan ugu damqanayaan ay dhaqaalaha inta leeg waqtiga koobanna ku soo siiyeen waxaan idinkaga farxinaynaa walaalayaal inay ladan soo gaartay oo ay hadda hayso $32,600 $32,600 $10,000 oo sahalkeeda ku jirta $20,000 oo akoonkeeda ku jirta $2,600 oo hadda guddoonsiiyey iyo $700 oo boorsadeeda ku jirta so $700 haddii lagu daro waxay noqonaysaa $33,300 ayay noqonaysaa $33,300 ayay noqonaysaa lacagta ay maanta haysato oo ilaahay ehelkeeda iyo xigtadeeda iyo dadka u naxaya oo khayrka badan ee Soomaalida ay adduunka dacaladiisa jooga ay u soo direen inay gabadhooda karaameeyeen oo weyneeyeen waxa weeyaan ilaahay bay ugu dhawaanayaan waxaan aad ugu qanacsanahay waxaan aad ugu faraxsanahay in ilaahay Soomaaliga dhaliyay dad waxa weeyaan wax aad iyo aad loogu farxo weeye waqtiga kooban oo aadka u yar in dhaqaale inta la gabadha yarta u soo aruuriseen waxaan rajaynaynaa inay ladani noqoto midii aan lacagta ku ciyaareen midii aan lacagta ku dheeldeelin midii aan lacagtaas dadkeeda ugu qareemeen oo damiirkooda ugu dabciyeen oo ugu xanuunsadeen xanuunka haysta aan ku ciyaarin oo lacagtaas meesha ay mudan tahay kaliya marsiiya daway u baahan tahay nolol bay u baahan tahay gabar bay weeye life bay u baahan tahay lacagta iyada waxaa laga dalbayaa inaadan gabaray ku ciyaarin oo aysan dheeldheel kaaga bixin oo saaxiib iyo shalay waxaad lahayd dad malihi ehel malihi xigta malihi kuwii ku tuuray kuwii ku dhibaateeyey kuwii cadowga kuu loogay maantay lacag baad haysataa hoostaaday soo fadhiisanayaan nimankii ku dullaystay nimankii sida xun kuula dhaqmay kuwii ku daqdaqray kuwii cisigaagii sharaftaada ku tuntay maanta waa ku rabaan gabdhuhu waa nugul yihiin waa ku sasabanayaan haddeeru ku leeyahay waa ku rabaa iyo cirkaan ku gelinaya dayaxay daruuraan kaa qarinaya annagoo soo celina ku dhihi mayno cayrina ku dhihi mayno garaadkaagii dadnimadaadii qofnimadaada iska leh laakiin waxa weeyaan kolley qofku markii uu shilimaan lagu arko waa loo baahdaa waa loo baahan yahay waa lagu soo xiriirinayaayo saaxiib baa lagaa dhiganayaa tol baa lagaa dhiganayaa ehel baa lagaa dhiganayaa waxa weeyaan lacagtaas waxa weeyaa xooggeeda awooddeeda adigaa lagu siiyey waxaa la rabaa inaad lacagtaasi wixii aad marada uga baahatid haddaa wax ka cunaysid haddaad dawo ka gadanaysid waa la ogol yahay laakiin waxaa la rabaa faytaan iyo baadhi iyo gabarnimo ciyaar iyo inay sawlaha gelina lacagtaas sidii aad dawo aad iu heli lahayd iyo dhakhaatiir ka wanaagsan kuwa hadda waddankeena jooga ood is leedahay nacam markii hore waxbay kuu qaban waayeen inaa aadid baa la rabaa haddii aabboo xanuunsan wax uga diri kartid waa la ogol yahay saan filayo waxaan adaa iska leh waa aabbaha xaq buu kugu leeyahay waa kuu baahan yahay waxa weeye aabba waxa uga diri kadha waa la ogol yahay saan aniga aaminsanahay dhibna kaaga imaan mayso cadaabna ku midan maysid aabbe insha allah xus aabbe ka ducayso aabbe iisoo duceedheh waxaa suurtagala inaadan la korin inaadan waqti badan arag waxaa suurtagala waxa weeyaan ducadiisu waa kuu shaqaynaysaa waxaa laga yaabaa xanuunkaani waxaan ilaahay inuu kaa faydo ramadaan baa lagu jiraa weliba 10kii dambe lagu jiraa dadka muxsiniinta khayrka badan oo dhaqaalaha bixinaya iyaga laftigooda intaa kuu soo ducaynayaan
aad baan ugu faraxsanahay inay abaayo akoonkeeda maanta ku jirto 33,300 dollar iyo karaamaad leedihiin. ilaahay ha idin darajayaan leeyahay, ilaahay ha idin weynayaan leeyahay. dadka khayrka badan oo meel walba adduunka uga soo qareemay oo abaayo lacagaha u soo diray oo meel walba u soo mariyey, allah idin sharfaan leenahay. waa dadaasheen, waxa weeye waad ka farxiseen, qalbadeeda iyo qulubteedu saaka waa degan tahay. 33,000 dollar waa lacag fiican, waa lacag badan, waa lacag ay insha allah meel ku gaari karto, nolosheedana ku soo ceshan karto, ku bilaaban karto. wuu mahadsan yahay Faarax, isagoo ah dareen qof walba uu leeyahay kula qaybsada si naxariis loola qaybsada. dadku qalbi bini'aadamku dushii ka sameeyay, laakiin waxa kala duwan yihiin waa qulubtuna qofku bini'aadamka ilaahay baa siiya dareenka iyo naxariista, ma wax la sakan keeno oo qofku ilaahay ugu abuuro. marka waxaan leeyahay maanta waa mahadsantihiin. anigana waxaan rajaynayaa insha allah lacagta ay soo gaarsiiseen inaan wax fiican ku qabsado, dhakhtarku aado aan meel weyn lacag lagu ciyaar maaha, waa lacag laygu soo sadaqaystay. waxaa laygu soo sadaqaystay waxa inaan maanta nolosheeda ku horumariyo, aan caafimaad ku helo insha allah. waxaan leeyahay mar walba jazaakum allahu khayran jaza axsana allahu ilayk. dareenka ii muujiseen allah inii muujiyo, waa midaan iniga filanayay, waa midaan sugayay inaad ii muujinaysaan, waa midaan sugayay inaad ila qaybsanaysaan insha allah. mar walba waxaa tii walaalahay maanta waxaan leeyahay walaalay jecel iyo garab shalay, laakiinse waxaa qof ila taagan. waa run marka qofku wax yeesho qofkii shalay ku dhacay waa ku imaanaya, waa xaqiiqada jirta taas. waxa Soomaali isku jecel yihiin baahida ku kala tagaan iyo xanuunka, laakiin caafimaadka iyo waxbarashada waa isku rabaa. runtii marka shalay qof aan cilla iga tegay maantana soo dhawaysanaya maaminsan. bilxaqiiq waa shalay waan baahnaa aan maanta ma baahnin, ilaahay unbaa maanta u baahnay. walaalaha Soomaaliyeed ee maanta isoo garab qabtay, ee maanta dareenka ila qaybsaday, ee maanta naxariista ila qaybsaday, waxaan leeyahay walaalo mahadsantihiin dhammaantiin. jazaakum allah. hadalkiina ma soo koobi karo, ammaantiina midaan qoraal iyo akhris kusoo koobi kara maaha. ee ilaahay dembigiina ha dhaafay kii waalidkiin maalinta aakhire ee maal aysan waxba tarin ee awlaadka ba tarin, maalintaasna ilaahay rabbi subxaana kuwi jannada ku kulma ilaaha naga dhiga insha allah. berihii hore ee xaaladeeda waad ka warhayseen siday ahaydoo qof aad iyo aad caloosha u hurayso oo u gubanayso oo qulubtii ka dhimatayoo naxariis darro dareentayoo la guulguulayoo la dhibay ayay u ekayd. laakiin shalay iyo maanta macaaniga laba waxay ii kala leedahay muuqaal aad iyo aad bay maantay u degan tahay. qofka marka tahay qalbi ahaan dadkiisu helaan oo la hantiyo qalbigiisa, oo qofka la tuso in dad uu leeyahay, ehel leeyahay, xigta leeyahay, loo maqan yahay, xoogaa waxa waa damiirkiisa dadnimiisu waa degayaan. aad baan ugu faraxsanahay inay maanta qanacsan tahay, inay degan tahay. ilaahay bay mahad u sugnaatay. walaalo way hadda way heli kartaa waddadii. markii dayuuraduhu furmaan waxaan rajaynaynaa inaanu raadino xalkii lagu heli lahaa fiisa Turkiya, wax noocaasa. inta ka horeysana dhaqaalahaas waxaan kaa dalbaynaa in ay bangi dalaq yidhaahdaan, lacagtaasi inay bangi ku jirto oo wixii ku yimaadaba ay bangi galaan. wixii aad kala baxaysa hadda shilimaanta 700 uma baahnid, maxaa lacagta kaashkaada iska xaree. sahalkaa waxaa lagula haraa lacag kooban ood isticmaashid. sahal moogta cidna waxaa ku jira kaalama bixi karto, waana lagula joogaayo dee rag baa kula joogo, ilaahay mas-uuliyad buu kuu sameeyey iyo dad waxa weye wax dardaro kula soo doonan kara iyo wax ku handadi kara hadda ma jiraan. marka waxa weeye walaal macaan, waxaan rajaynaynaa farxaddaadii reerayntaada inay soo noqoto, inaad noqotid bashar ilaahay samaystay, xanuunka ilaahay u gartay, ilaahay ka faydi karo, laakiin leh dad shaafiyi kara, u qareemi kara, dhaqaalana u soo diri kara, waxa weeye una ducayn kara. waa kii dhaqaala oo kuu yimaada. waxaan rabnaa inaynu wada soconno. hadda 33,300 baa marayna. waxaa jira gaari laba muxsinaad halkaan uga ducaynayo, ilaahay noolaas inuu baarin siiyo. waxay soo dalbatay in loo soo duceeyo gabadhaas waddanka Maraykanka ku nooshahay. waxay tahay in ilaahay awlaad ciido baari ay siiyo, waxa laii soo duceeyo. gaari ay leedahay oo bili wax yar ka yaari oo hoomi ah oo wuxuu yaalaa bukool oo hadda la soo kaxaynayo, gaariga qore la keenayo bay gabadhaas igu sadaqaysatay. ilaahay meesha ka saato wax ka qayb badan ugu bedelo abaay macaanto, ilaahay awlaad ciido baari ku siiyo insha allah. walaala waa ku celinaynaa. abaayo waxaa la soo xiriirtay gabar Maraykanka degan. gabadhaas waxay dalbatay dadka islaamka ah ee adduunka dacladiisa jooga halkaa naga daawanaysa. waxaan rajaynaynaa gabadhaasi waxay dalbatay in awlaad siciida ilaahay siiyo, ilaahay wadina siiyo. gabadhaasa loo duceeyo, maalin Ramadaan weeye. gabadhaasi baabuur hoomey waxa weeye waa basaska caasiyada oo magaalooyinka transportationka Muqdisho kale iyo ka shaqeeya, ama magaalooyinka waa u kala goosho Muqdisho iyo gobolada dhexe iyo caasi baanu u naqaanay, gaari caasi aan u naqaanay waagii hore, ma naqaan hadda hoomeyga meel ka yimid. baabuurkaasi wuxuu yaalaa gobolka Bakool. gabadhaasi baabuurkaasi waa la soo kaxaynaya, waxaa la keenayaa Qardho.
gaarigaasi waxay gabadhaasi ku sadaqaystay walaalnas ladan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa gabadhaasi in bedel khayr qaba uu siiyo sidoo kale waxaan walaalayaal u ducaynaynaa walaasheen in ilaahay awlaad siciida siiyo waxa weeye qofku marka uu dadka islaamka kusoo noqdo oo duco ka dalbado waxaa la rabaa inaan laga xasdin aan laga harran gabadha loo duceeyo ilaahay awlaad siciida ha siiyo maraykan ku nooshahay annaguna waxaan ku leenahay walaal ilaahay ha kuu barakeeyo ilaahay ubad khayr qaba ku siiyo insha allah 1 iyo 2 iyo 3 iyo ka badan baa ku rajaynaynaa allah ku barakeeyo lacagtaada iska leh iyo adiga keliya cid kugu xukuntay cid kugu maamulaysa iyo cid saaritaankeeda shaqo kule ma jirto laakiin lagula ogaado cadadka lacagaha dadka soo diraya oo looga mahadceliyo wax wanaagsan weeye lana ogaado in gabaray lagu damqaday baan la jooga waana ku faraxsanahay soo wax wanaagsan